السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان walaalha ku xiran barteena amjad soo dhawaada cashirkeeni shanaad ee aan ku baranaynay Google Ads. Haddii aadan soo daawan muuqaalkan ka horeeyay oo aan ku soo baranay waxyaabo fara badan oo ku saabsan Google Ads ama xayeysiinta Google sida loo sameeyo iyo waxyaabaha la iskaga baahan yahay, fadlan muuqaalkaas soo daawo si cashirkan oo micno kugu lahaado. Maanta waxaan isla baran doonaa wax la dhahayo keyword research and targeting. Waa maxay keyword? Sidee keywords loo doortaa? Maxaa loo qeybiyaa? Keyword noocee soo xulan karaa? Halkee ka helayaa keywordska aan u baahanahay si aan xayeysiintayda Google search-ga u sameeyo? Qofkii step by step cashiradii hore si fiican u socday, waxaan hore u soo sheegnay labada shay ee ugu muhiimsan markii la sameynayo xayeysiinta Google search-ga ee tahay waxa la dhahayo bidding strategy. Macnaha inaad iska saxdo biddingka nooca aad dooranayso, haddii ay tahay manual bidding ama haddii ay tahay automatic bidding. Waxaa kaloo aad muhiim u ah inaad iska saxdo keywordska, sababtoo ah xayeysiintaada maadaama aysan display ahaynin ee search tahay, waxa qofka uu qorayo adiga ayaa go'aaminaya. Marka haddii keywordkaaga uusan saxnayn, waxay ka tarjumaysaa iyadana lacagtaada khasaare ayaa ku socotaa. Si walba oo bidkaaga u saxan yahay, haddii keywordkaaga uu qaldan yahay, si lamida xayeysiintaada khasaare ayay noqon kartaa. Marka waa labada shay ee ugu muhiimsan si ay u guulaysato xayeysiintaada Google search-ga. Waa in bid strategy-gaaga uu saxan yahay, waa in keyword saxan aad doorataa. Waxaa kaloo aad muhiim u ah xayeysiinta markii ay bilaabato in aad ku sameyso optimize. Mar walba oo xayeysiinta la sameeyo, waxay martaa wax la hayo learning phase. Learning phase waxaa loo yaqaanaa markii aad xayeysiintii ay active noqoto, dadkuna ay soo search gareeyaan, ay soo booqdaan landing page-kaaga, waxaa dhacayo keywords aadan u baahnayn ama audience ama dad qaar aadan u baahnayn inay soo search gareeyaan aad ku arki doontaa markii aad joogto keyword optimization. Okay, marka keyword optimization markaa sameynayso, waxaa sameynaysaa dadkaas keywordka ku soo qoray oo qaabab kala duwan soo qoray in aad ku sameyso iska joojiso. waxaa isticmaali doontaa wax la dhahayo negative keyword. Okay, ereyga keyword qeexitaan ahaan hore u soo qeexnay, waxaa ku qeexnay waxyaabaha dadka ay ku soo qorayaan Google-ka ayaa waxaa loo yaqaanaa keyword. tusaale hadda halkaa waxaa kaaga muuqdo waxyaabaha dadka ay ku soo qoraan Google-ka oo loo yaqaana tusaale crypto advertising platform, crypto advertising agency, crypto advertising regulation, crypto advertising on Facebook. Marka waxaas dhan halkan ku qoran waxay ka imaadeen keyword. Tusaale dadka halahan ku soo qoro waxaa la tusi doonaa keyword loo yaqaano crypto advertising. Macnaha crypto advertising ay ka baxaan. Marka keyword waxaa ku qeexnaa waxa ay dadka ku soo qorayaan Google-ka si ay haddii information raadinayaan iyo haddii kaleeto. Okay, dadkaas soo qoraayo jumladooyin kala duwan, kuwaasoo hadba ay ku soo qorayaan Google-ka, hab fikirkooda ama hab qoraalkooda ama waxa ay rabaan, dadkaas way kala duwan yihiin. Tusaale, dad ayaa waxay ku soo qorayaan Google-ka qoraal iyagoo raadinaya informational waay. Teamkaas waxaa loo yaqaanaa waa informational. Soo marka xayeysiinta aad sameynaysid haddii informational aad u baahan tahay, dadkaas ayaa target garan doontaa. Marka dadka informationalka waxaa lagu yaqaanaa waxay isticmaalaan erayada what, who, how, waxyaabahaas isticmaalaan. Tusaale, what are the tennis shoes? Qofkaan marka wuxuu rabaa kabaha tennis shoes loo yaqaano maxay yihiin. Qofkaan marka wuxuu soo maroyaa informational stage. Okay, keyword type-ka markii loo fiirsho search intent ama qofkaas rabitaankiisa waxaa kaloo ka mid ah nooc loo yaqaano navigational. tusaale waxay ku soo qorayaan oo kale Nike showrooms in New York. Marka qofkaas tusaale wuxuu rabaa information oo qaas u ah shirkadaas brandigeeda iyo waxyaabo oo information la xiriiro, laakiin ku xiran wadan qaas ah, tusaale ama magaalo qaas ah oo kale
oo magaalo hebel oo kale targetkiisa wuxuu yahay tusaale wadankaas maxaa waaye ama meelaha oo dadka ay booqdaan oo kale waxa kale marka kan u muhiimsan oo ina xooga saartay ay tahay markii la fiirinayo search intentiga waxa kamid ah wax la dhahayo commercial qofkaas marka wuxuu rabaa wax inuu iibsado adi marka xayeysiinta aad sameynaysid qof service-kaas ama product-gaas inuu ka iibsado ay tahay waxa isticmaalaysaa qaabkan oo kale kuwan oo information-ka ah ama navigation-ka waxa ku sameynaysaa negative waa iska istaajinaysaa oo kale okay hadda tusaale waxa kamid ah qofka wuxuu soo dhahay what is the best brand of a tennis shoes marka qofkan wuxuu raadinayaa kabaha tenniska lagu ciyaaro shirkadda ugu fiican brandiga ugu fiican oo kale marka qof soo dhow oo rabo inuu wax kala doorto waay this marka waxa dhigi karnaa macnaha rabitaankiisa aad u soo sareeyaa tusaale marka qofkii markuu saas wax oo rabitaan soo baaray oo go'aan soo qaatayna qof wax iibsanayo waa kan marka waxa loo yaqaan waa high intent rabitaankiisa aad ay u sareeyaa kan waxa waaye waa asigana intentigiisa uu sareeyaa laakiin kan ma uusan gaarin kuwan laakiin waxa waaye labadan kale information ama navigation ka waxa loo yaqaan waa low intent rabitaankooda aad u hooseeya kaliya waa dad information raadinayo waa dad baashaal iyo waxyaabo caadi ah bis ay ka tahay qoraalkooda marka kuwan waa inaad iska saartaa kuwan waa inaad xooga saartaa tusaale marka qofka wuxuu dhahay buy Nike tennis shoes marka qofka wuxuu doortay shirkadda Nike ee kobaheeda ee maaragtay sportska uu tala gasho kale waa qof dhameystiran diyaar u ah inuu wax iibsado meeqa ayaa loo qeybiyaa keywords-ka maadaama aan si guud u fahnay keyword wax la dhahayo iyo dadka soo qoraya noocyadooda keywords-ka waxaa loo qeybiyaa 3 broad match phrase match iyo exact match mid walbana si gooni ah u qeexi doonaa okay ama tusaalooyin ayaa ka soo qaadan doonaa broad match waa keywords ama xarfo aad ku qoraysid qaybtaada maaragtay keyword-ka laakiin wax ma raacsiinaysid wax calaamad ah ma raacsiisano phrase match waa keyword aad ku soo qori doontid qaybta keyword-kaaga laakiin calaamadaas ayaa raacsiinaysaa exact match waa isla keyword ama isla xarfo aad ku soo qori doontid qaybta xayeysiintaada aad ku soo dari doontid laakiin calaamadaas oo maaragtay beeno qowseynka ah ayaad raacsiinaysaa marka calaamadaas keyword-ka aad raacsiisid waxaa loo yaqaanaa exact match kaamidka aad raacsiisid waxaa loo yaqaanaa phrase match midka oo waxna lahayn waxaa loo yaqaanaa broad match waxaa kaloo jiro mid afraad aan dhihi karno oo loo yaqaano negative keyword kaana waxaa raacsiinaysaa calaamada negative-ka erey marka aad qaybtiisa hore negative ka raacsiisid waxaa loo yaqaanaa negative keywords iga reebaa la dhahaa okay broad match muxuu focus gareeyaa xayeysiinta haddii erayaashaada ay noqdaan broad waxaa la tusi karaa dadka soo seerji gareeyay ereygaas ama wax la xiriira sometimes tusaale home doctor ayaa soo seerji gareysay ayaa ku qortay broad match macnaha keyword ahaan u isticmaashay tusaale waxaa isticmaashay keyword loo yaqaan home doctor xayeysiintaada markii ay tahay broad match waxaa la tusi doonaa home doctor dadkii qoro ama wax ku micno ah la xiriira ka ag dhow tusaale home qofkii qoro waa la tusaa qofkii doctor bis qoro waa la tusaa macnaha home doctor bis aad rabtay laakiin home waa la tusaa kaliis doctor kaliis waa la tusaa waxyaabo oo ku micno ah waa la tusaa waxyaabo micno ahaan soo dhaweeyay waa la tusi doonaa midkan kale loo yaqaan phrase match okay markii aad doorato nooca loo yaqaan phrase match xayeysiintaada waxaa la tusi doonaa dadka ku soo qoray waxa aad soo qoratay ama wax la micno ah sometimes waxaa qortay waxa la dhaho cheap furniture stores marka cheap furniture stores sometimes xaraf oo store amal la micno ah laakiin aan exactly store aan ahayn hadduu qof soo qoro waa la tusi doonaa macnaha erayaal maadaama xaraf laga yaabo xaraf kale ay isku micno yihiin micno ahaantaas xarafkaas boostiisa soo geli kariyaa kan ugu dambeeyo waxaa la dhahaa waa exact match sida aad u qortay qofkii soo qoro bis ayaa la tusaa sometimes haddii misspelling oo dhaco oo qofkas erey yar oo qaldo uu saxa tusaale furniture store qofkii furniture store bis soo qoro ayaa xayeysiintaada la tusi doonaa tusaalooyin marka mid ayaa u sameyn karnaa tusaale hadda broad match oo kale markii la joogo waxaa arkaynaa hadda markii qofka oo doorto broad match keyword kaas oo kale oo soo doorto
intaas dhan waa la tusi doonaa waxyaabo oo aanan ku micno ahaynin oo aanan shaqo ku lahaynna xataa soo galaya. Okay, haddii tusaale aan dhahno phrase match, waxaan arkaynaa hadda phrase match oo kale tennis shoes. qofka marka oo ka dhigto keyword waxaa la tusi karaa shoes for tennis, waayo macnaha waa la kala hormariyay laakiin macna ahaan waa isku mid. Buy tennis shoes on a sale, marka tennis shoes ku jiro laakiin waxaa lagu soo hormariyay buy iyo macnaha wax oo qiimo dhimis ku jiro kale. laakiin haddii labadaas mid ka mid la soo qaato tusaale hadda waxaa ka arkaysaa tennis store ma la tusi doona xayeysiintan. laakiin haddii phrase oo ahaa lahaa keywordka aad soo dooratay broad, haddii aad dooratay tennis shoes oo broad match ah nooca broadka waa la tusi lahaa. qof haddoo soo qoro tennis store xayeysiinta waa la tusi lahaa. adigana ma u baahnayn tennis store laakiin waxaa u baahneed tennis shoes. marka broad match inaa mar wax badan iska fiirisid ayay ku fiican tahay oo macnaha aadan ku badinin qaybahaada. Okay, kan waxaa loo yaqaanaa waa exact match. calaamadaas taa ku aragtid waxaa loo yaqaanaa waa exact match. keywordka exact matchka waaye. qof haddoo qoro marka tusaale shoes for men ama shoes man oo for ka reebo waa la tusi doonaa, man shoes waa la tusaa. waxyaabahaas oo dhan waa same, laakiin haddii tusaale waxyaabo kale lagu soo daro man tennis shoes, maadaama fiiriyaa si fiican inaa u fahantid waaye shoes for man, ama haddii fordaas maadaama wax macno gooni aysan lahayn, haddii shoes iyo man dhexdooda la soo geliyo shay kale macnihii wuu ka tegi doonaa. hadda meesha waxaa ujeednaa man tennis shoes, marka tennis ma ku jirin sheekada, sidaa darteed xayeysiintaada ma la tusi doono. Okay, waxaa kaloo jira mid la dhahaayo negative keywords. negative keywords waxaa waaye xayeysiintaada ayaa waxaa kusoo daraysaa minus. tusaale minuskaasna waxaa leedahay tusaale xayeysiina aad samayn rabtaa, brandi ayaa leedahay, laakiin brandigaas brandiyada cagsiga kula ah marita. tusaale waxaa dharaa iibisa ama wax kale ayaa gadaa marita xayeysiintaada Amazon inay soo dhex gasho. tusaale minus Amazon aa dhahday, ama tusaale wax adiga maadaama product iibisid negative keywordkaaga free a minus ka dhigto. tusaale waxaa dhahday minus free, annaga wax free ma bixinayno, that means qof walba oo free kusoo daro ma rabno. marka negative kana muhiim waaye. Okay, haddii aan qaybtaas la soo fahnay waxaa jira wax la dhahaayo keyword planner. maadaama keyword waxyaabaha loo qaybsho aan fahnay, keywordskaas sidee ku dooranaysaa, halkee ka dooran kartaa? marka waxaa jiro websiteyo keywordska kaa caawin karo. websiteyadaasoo tusaale waxaa ka mid ah keyword planner, waxaa ka mid ah SEMrush, waa qayb wuxuu leeyahay lacag oo free maahin. waxaa kaloo ka mid ah websiteyada kaa caawin karo in aad keywords hesho, mid loo yaqaana keyword suggestion. aad u fara badan yihiin. marka websiteyo badan ayaa jiro oo keywords kaa caawin karo, taasoo aad sameynaysid waxyaabaha aad xayeysiinaysid waxyaabo la xiriira ayaad gelinaysaa, kadib keywords fara badan ayay ku siinayaan. kuwaasa waxaa la rabaa marka adigoo maskaxdaada kaashanayo iyo waxa aad rabto iyo xayeysiinta sidee u socoto, nooca ay tahay xayeysiinta, qofka aad xayeysiinta u sameynayso waxa uu target gareenayo adiga oo kaashanayo, ayaa waxaad soo dooranaysaa keywords 20, 20, 30 hadba budgetkaaga wax la xiriira. marka waxaa jira wax la dhahayo keyword planner oo Google iska leeyahay. Okay, waxaa imaanaynaa qaybta toolska. toolska markaa imaano waxyaabo fara badan ayaa ku jiro. hadda anaga qaybta planninga ayaa ka tegaynaa. sometimes meeshaan oo kale waxaa ku jiro, waxaa ka heli kartaa audience-yaaga, brand listigaaga, asset library waxaa la dhahaa. haddii aad hore xayeysiin u sameysay sawiro ama qoraallo ama waxyaabo badan halkaas way kusoo geli doonaan. waxaa kaloo halkan ku jiro waxa la dhahayo budget and bidding. waxaa samayn kartaa bid istiraatiijigaaga bedeli kartaa haddii ay noqoto manual iyo waxyaabihii kaleeto automatic sida target CPA, target ROIs iyo conversion. Okay, marka hadda anaga meesha socono waxaa imaanaynaa tools planning. waxaa ka tegaynaa waxa la dhaho keyword planner. keyword planner qaabkan u yaalaa. marka discover new keyword waxaa waaye waxaa gelinaysaa website-ka URL-keeda waxyaabahaas asiga suggestion ku siinayo, laakiin anaga waxaa rabnaa keywords caadi ah inta click gareysay iyo bidka lacagta ku bixaysa waxyaabahaas inaad doorano. Okay, qaybtaas markaa ku dhufano waxaa la rabaa inaad geliso wax la xiriira macnaha keywordskaaga. hadda tusaale maadaama anaga xayeysiinteeni horeeto shirkad nadaafad,
waxaan dhahaynaa kasoo qabo home cleaning. Okay, cleaning oo kale iska dhahaynaa cleaning service oo kale ala. Okay, waxaan leenahay get start. marka aan sidaan dhahno hadda wuxuu saaran yahay Soomaali oo kale. maybe Soomaali markii aad saarto wax result ma helaysid maadaama xayeysiinta Google-ka ay maaragtay ama qaybta Google xayeysiimada maadaama aad u yar tahay. kasoo qabo for example USA aad u qaalisan meelaha bidkeeda qaaliga yahay ay kamid tahay. kasoo qabo hadda anaga waxaan rabnaa inaan Kenya wax ku xayeysiino. shirkadeena Kenya ay ku taala. kasoo qabo meeshaan time-ka waa bedeli kartaa all available oo kale. marka waxyaabahaas hadda oo noo soo saaray labadaas aan gelinay inta oo macnaha monthly surge lagu sameeyay iyo bid ahaan hadhow dad lacagta bidka oo page-ka koowaad ay ku soo muuqanayso wuxuu ku siinaa talooyin oo suggestion ah. okay, anaga marka midka aan rabno ma ahin save keyword kuwa anaga soo qornay waa kan iyo kan iyo kan. ka koowaad loo yaqaan keyword ideas. keyword ideas marka imaano wadana soo dooraneena. tusaale hadda anaga waxaa dooranay Kenya kasoo qaad for example meeshaan waxaa ku qoraysaa keyword idea. tusaale hadda waxaa dhahnay waxaa ku qornay sofa cleaning service oo si general ah. saddexdaas aan ku qornay website daagelisid wax badan oo ku soo tixaa website naga dhaaf. waxaa dhahaynaa marka get start. hadda waxaan joogaa keyword planner qaybta loo yaqaan keyword ideas. waxaan rabnaa inaan keyword soo doorano fikrad soo qaadano boqolaal keyword markii aad xayeysiin sameynaysid boqolaal soo diyaarinaysaa laakiin boqolaalkaas waxaa kala dhex bixaysaa wax yar oo laakiin saameentooda aad u fara badan tahay kuwaasoo ka tarjumayo qaybo kala duwan targetkoodu ay tahay haday noqoto conversionki haday noqoto shay informationka waxyaabo badan macnaha ku isdhisayaan. okay, get start marka dhahno halkaan ayuu wuxuu ku soo tixay waxyaabo fara badan. hadda waxa u jeedaa inta keyword oo noo soo tixay aad u fara badan tahay. waxa u jeednaa carpet cleaning, model cleaning, waxyaabo fara badan maaragtay dry cleaning, dry vacuum aad u fara badan tahay. marka tusaale mid kasto waxa u jeedaa bidkiisa ama lacagta lagu qiyaasayo. kuwan marka waxa ku sameynaysaa waxaan oo ku soo tixay waa download gareysanaysaa. laakiin inta aad download ku sameynin waxa ku sameyn kartaa waa filter gareyn kartaa. hadda maadaama keyword-kan inta xab oo yahay waa 1300 oo keyword. okay, filter ayaa ku sameynaynaa qaybtaan marka imaana. marka waxa u jeednaa hadda waxyaabo fara badan. marka wixii aanan la xiriirin shirkadaada waxa ku sameynaysaa cancel ayaa saadaysaa. tusaale hadda services oo kale marka imaano oo furno haddii tusaale aysan ku jirinin hadda waxaa meeshaan u jeednaa sofa chair bed. haddii aadan kuraas aadan nadiifinayn oo kale cancel ayaa ka saaraysaa. qaybtaan oo kale waxyaabahaana meeshaan fiirinaysaa. marka aad fiiriso waxyaabaha aanan shaqo ku leehaynin website-kaaga ama xayeysiintaada ayaa tigta ka qaadaysaa. marka waxyaabaha marka aan shaqo ku leeyahay marka tigta ka qaado waxa soo yaraanaya keyword idea-daada inta xab ay tahay. marka download aad dhigi kartaa Google Sheet oo kula digi kartaa ama CSV file oo kula digi kartaa. marka aad la degtid marka ayaa waxa laga rabaa ama Excel-ka aad geysato in aad kala xushid oo aad ka soo saarto wax yar oo nadiif ah. okay, waxaas aad soo saartay oo nadiifka ah ayaa halkaan la imaan doontaa. tusaale ka soo qabo waxaa la imaaday home cleaning. laakiin home cleaning kaas waxaa rabtaa inay noqoto fresh match. qaabkaas aan ka dhigaynaa. waxaa rabnaa tusaale ka soo qabo sofa cleaning. tusaale waxaa rabnaa ka soo qabo sofa cleaning. laakiin sofa cleaning kaas waxaa rabtaa inay noqoto exact match. waxaa gelinaysaa ka tusaalan ka rabnaa macnaha. waxaa rabnaa ka soo qabo labadaas oo kala tusaale ka soo qaadanay. okay, waxyaabaha aan negative-ka ka dhigayna waxaa kamid ah ka soo qabo free oo kale. waxaa ka dhignay what. okay, what waa macquul. ereygaas oo kale ka soo qaadan tusaale. marka wixii aad soo doorato halkan ayaa soo gelin doontaa. hadda anaga waxaa dooranay home cleaning oo fresh match ah, sofa cleaning oo tusaale exact match ah. negative-na waxaa ka dhignay negative keyword-na waxaa ka dhignay minus free. macnaha free waxa ay ku jirto tusaale free home cleaning, free carpet cleaning, wax walba oo free lagu daro ma soo muuqan doonto xayeysiinteena. marka intaas ayaa loo qeybiyaa keywords-ka aad ayuu muhiim u yahay. markii aad baaraysan website dadka ka caawiya jiro waxaa kamid ah SEMrush, waxaa kamid ah waxa la dhahayo keyword suggestion. website-yadaas dhamaantood waxaa sameynaysaa meelo kala duwan ayaa keywords-kaaga
aad waqti badan siinaysaa. Marka labada shay ee muhiim tahay in iska saxdo waxa waaye waa keywordska iyo inaad iska saxdid bid strategy-ga ama bidding-ka aad dooranayso in aad iska saxdo aad ayay muhiim u tahay. marka qaybta keywordka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. haddii ay jirto su'aal aad ka qabto cashirkan ama cashiradii ka horeeyay ee Google Ads-ka kuwa introduction-ka markii aan sameynaynay akoonka iyo markii aan sameynaynay xayeysiinteena Google search-ga ama markii aan baranaynay waxa la dhahayo bidding-ka automatic iyo manual noocyadooda. su'aal walba oo qabto waxaa kusoo weydiin kartaa qaybta comment-ga. haddii aan fursad u helno waa kaaga soo jawaabi doonaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeennii shanaad. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.